madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo inta badan aan looga baran ka hadlidda marxaladaha siyaasadeed ee Soomaaliya marka ay taagan yihiin ayaa khudbad uu jeediyay tan iyo intii ay soo ifbaxdeen si weyn indhaha loogu hayay waxaanu ku eegaynaa 7 qodob oo khudbadaasi ay isdul taagtay kuna wajahan marxaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. Farmaajo waxa uu ugu horreyn khudbadiisa uga hadlay mudnaanta uu siiyay dibudhiska ciidamada Soomaaliyeed iyo inay diyaar u yihiin la wareegidda amniga dalka. waxa uu ku soo koobay 112 eray taas oo sida durba la falanqeynayo jawaab cad u ahayd hadalhaynta ku kalsoonaanta xoogga amni ee Soomaaliya iyo qodobkii 17aad ee warmurtiyeedkii shalay ee madasha doorashadu soo saartay oo la sheegay in ciidanka midowga Afrika ay tahay in lagu xoojiyo amniga fiilla Soomaaliya. shacbiga Soomaaliyeed ma xamili karaan isqab siyaasadeed iyo cagajiid kale oo lagu sameeyo hanaanka doorashada. waa kelmad uu isticmaalay Farmaajo waxa uu si kalsooni u jaray masaafo ay adag tahay in siyaasi Soomaaliyeed oo xilka fadhiya sameeyo. waxa uu shacabka u cadeeyay inuu taageersan yahay waxa ay Soomaalidu rabto heshiiskana ku tahay. erayadan waxa ka muuqda in dhankiisa uusan dib u arag tanaasul ka sameeyo wax la wada leeyahay muhiimaduna u tahay midnimada iyo wax wada lahaanshaha Soomaalida. dadka siyaasaddiisa naqdiya waxa ay ku fasireen hadalkan inuu yahay mid naadir ah oo aan laga sugaynin Farmaajo. 3 soo dhaweynta natiijadii ku aadaneed arrimaha doorashada iyo in lagu soo gabagabeeyo muddada la qorsheeyay iyadoo uu muujiyay madaxweyne Farmaajo tuhun laga qabi karay qaar ka mid ah madaxda dawlad goboleedyada oo ka cagajiidaya qabashada kuraasta baarlamaanka ee laga sugayo. Farmaajo mucaaradkiisu kama sugeen war noocana oo muujin kara bisayl iyo in laga fogaado dib u dhac kale oo doorasho. waana xujo kale oo muujinaysa cid dib u dhigi doonta tareenka doorashada hadda si weyn indhaha loogu hayo. 4 boqol eray oo kale waxa uu ku wajahay si gaarana ula hadlay dhalinyarada Soomaaliyeed oo uu wali aaminsan yahay inay yihiin dhinaca ugu badan ee taageera. waa fariin doorasho iyo olole oo aan qarsoodi ahayn waxa ay taabanaysaa shakhsiyadaha la dhacsan aragtidiisa ee dhinaca dhalinyarada. 5 waxa uu soo bandhigay guulaha iyo waxqabadka sida uu gaarka uga duwan yahay madaxdii kale ee burburka kadib oo ay ugu horeeyaan la dagaalanka musuqmaasuqa dib u habeynta dhaqaalaha iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee ku dhisan is-ixtiraam iyo yaraynta faragelinta shisheeye. durxil erayo aan fududayn ah ayuu u isticmaalay xiisadaha siyaasadeed ee dawladdiisa kala dhexaysa dalalka qaarkood gaar ahaan Imaaraadka Carabta ma qarsan inuu diiday adduunyo iyo maalmo kooban inuu dhaafsado arrimaha duruufaha ku xeeran Soomaaliya. 6 wuxuu ku adkaystay inaanu aqbalayn dhulka iyo hantida laga samaynayo xilliga kala guurka. dabcan qodobkani waa halka kicisay hurgumada siyaasadeed ee kala dhaxaysa ra'iisul wasaarihiisa. wuxuu ku sii adkaystay in amaanadii ummadda aan cidna looga hari doonin taasoo muujinaysa inaan marnaba jirin isku dhawaansho. 7 Farmaajo waxa uu muuqday mid iska fogeynaya cagajiid ka hareeyay doorashada diidan tallaabadii uu arkay qoorsiga ee ra'iisul wasaarihiisu ku tagay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho si uu mucaawamo uga guddoomay Imaaraadka Carabta. ugu dambayn khudbadda Farmaajo jeediyay taageerayaashiisa iyo kooxaha ka soo horjeedaba waxa ay u arkaan mid muujinaysa in tareenka doorashada hadda dhammaan dhinacyada siyaasadda ee Soomaalidu ay ku wada khasban yihiin ayana ayba fur kulan u noqon doonto jihada siyaasadeed ee Soomaaliya. hadda kadib waxa la eegi doonaa cidda dib u dhaca jadwalka doorashada sababsan doono. madrasada Darul Istiqama oo uga barateen barashada Quraanka Kariimka kana qalin jabisay dafcadii 10aad waxay hadda inii soo kordhisay online academy oo ah qaab casri ah oo uga baran karto Quraanka adigoo jooga gurigaaga meel kasto aad joogto waad noqon kartaa ardayda Darul Istiqama. wixii faahfaahintaas dheeriya kala xiriir lambarada iyo gmailada shaashada ku qoran. Darul Istiqama daarta cilmi.